hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala ah wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa maanta kulan wadajir ah kula yeeshay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Galmudug iyo bulshada rayidka ah. Kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in la helo aragtida maamulka Galmudug ee ku aadan qodobada dastuurka ee dib u eegista lagu sameeyay maadaama wasaaradda dastuurka iyo xubnaha u xilsaaran ay wadaan la tashiyo kala duwan arrimaha dastuurka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa waxa la filayaa inay la kulmaan hoggaanka sare ee Galmudug sidoo kalena ay tagaan magaalada Gaalkacyo maalmihii la soo dhaafay ayaa xubnaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka waxa ay wadeen la tashiyo kala duwan iyagoo wufuud kala duwan u diray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Audio Jungle.